Hello, السلام عليكم. maanta banaanka u soo baxay. Woohoo! After long time staying inside. 14 days. Barafkaan dhan kora ka fiirsanay. I mean, Almost my 18 days 16. way. Oh wow. You Ang baraf looks so 16 beautiful. days. Ma soo bixin guys, guriga ku jire. Look, you can't know where the sidewalk is. Maanta soo baxay very nice sunshine. But baraf Minneapolis Look baraf at baraf. this. Whoa. Fiiriya meesha lagu marayo xataa. Oh my god. Masha Allah. This is life in Maraykan, you know. Yeah. asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada meel kasta aad joogtiin oo walaashin sahro inu salaamayso salaan sare aan samadan iisoo marsiinaa meel kasta adduunyada ka joogtiin maanta waxa waaye second update-keygii maasha allah oo covidka iyo xaaladda meesha marooya because dad badanaa iga walwalaaya like how you feeling maxaa dareemaysaa maxaa noo soo wici weysay oo to be honest horta wicitaanka waaba nacoosaabo sida islaan ma arkino oo isla markaa lacaan telefoonka wala jireen so marka covidka ugu dhaca waxyaalo badan aan naceysa include the phone because energy ma u haysid but to talk hadda xataa hadalka badan oo too much ka u hadlooyo ma arkino waa neeftuura weli even asagoo iga baxay because energy badan ma arkino ma u haayi marka for that reason ahead waxa aan dadka u wicin aan ula socon so I'm making this short video to let you guys know how I feel. I'm trying to learn this in the sharer thing so u shaqeey marka aadan ii salaama meel kasta joogtiin salaan sare ayaan ii soo marnayaa samada waa fiicana alxamdulillaah aan ka nooro geedkii dhahay ilaahay 2020 naga raacsiyo nagama soo celiyo ilaahay inuu naga raaco oo nagu soo noqono ilaahay ka baryeena insha Allah anakii intii muslima ilaaha naga haay kulay meeluhu ordooyay okay marka hadda lagu xanuunka horta iga baceen alxamdulillaah feverna ma bahaysan markii hore maasha Allah and then maxaa igu haray lila beed oo umalis xabadka ma arkin intaas lagu riixayo ma arkin barashar yar ay ka saaran tahay iyo maxaa dhahay iyo tabar darri ma arkino tabartana way ugu yartaa because taas waay hadda hadalka xataa ii dhibaya laakiin other than that alxamdulillaah taamkii oo karantiinkiina uu ii dhamaaday video yaro banaanka u baxay maalin dhaweeto oo fresh air aan soo qaadanay in la share gareyna later on at the beginning marka insha Allah waan fiicanahay waxa kaliya horto wuxuu leeyahay anxiety ma dhijin bakira eragiibe anxiety ma arkino like xanaaqa kugu badanayo because markii you're gonna get easily upset wax yariisa ka xanaajinayo gurigii maxay ahayd waa aragtay cuntadiina marka aniga waa jirnaa 2 weeks maadaama cuntadii ismeelka wax ma isu ori maalmihii hore waa iska walwalaaqi kara laakiin alxamdulillaah laakiin energy iyo qofka adiga abateedka ka dhumay soo awaasan erin kasto abateedkan uu iga dhumay cunto ma cuni karin marka ilmaha joogo oo haddana karantiina lagu jiro waa ogeydeen ilmihii guriga ku jireen museyga waa joogay so I'm gonna share experience like hooyo markay guriga jirato oo like saanoo kale ma arkino markii umashidoo kaleeta iyo ma arkino waxyaalo badan aad dareemaysaa before markii cunto aad karsan jirtay you don't ask nobody for help you know adaa iska subsanaysa even haddaa dhishid xataa waxaa arkay adoo iska kaco iska soo adeegan dukaamada aadaysa like it's a different story markii aad jiratid oo maxay aad ilaahay ma nagu keenay hadda qof ku dhaco long term wax cabaar qaadanayo soconayo sida kansarka kale iyo sida jiro kale ama lugaa ka jabtay ama waxba qabsan weys markay kugu imaadaan you gonna feel a lot of pressure because especially dadka aniga camal aniga I don't like inaan qof wax u darsado inaan dhaw wax iisoo qabo wax iisoo kari I don't ask ma arkino favor for people include guriga kuwa ila jooga xataa I don't ask marka wixii iga yaabay shargareynaa waay markaa jiraday in wax lagu soo kariyo iska dhaaf waxaa lagu dhahaa maami maxaa maanta guriga maxaa laga kariyay what is for lunch ilmihii include the husbands marka banaanka ka badbatay anaa igu soo jeesto waxaa la dhihi okay what is for lunch today or what's for dinner I was like why you guys asking me maxaa guriga ka karsan do I look like inaan cunto karinooyo anaa inta jiifa need food you guys have to cook for me why ii weydiinayseen maxaa gurigii yaalo marka it's just like waxyaalo oo dhahaysa why like you're gonna regret I need to train the kids haddii ilma teenager ay kuu joogaan oo kaleeto like inaan barsida cuntada loo kariyo include
masayga guriga joogo kale inaad tiraahdo like waxyaalaha yaryarkoo kale sida loo kariyo baastado kale hadda aniga masayga ugu yaqaanaa sida loo kariyo but still hooyadii loo bartay people is gonna depend on you adaaba lagu suga inaa wax karisidbo it was just like markaasa stress number one aba sii xanaaqay marka lagu dhaha waris in the house why are you asking me waxa guriga laga kari wax iisoo kariya anaaba jirantayada qaadilayso don't ask me no questions marka wallaahi markaas waxay ku qabanaysa ilmaha dhaan meel oo train cunto oo lagu soo baro ma geysaa you know it just like waxyaalaha aan kasoo barta hadda wax aniga marka islaanta kor waxa maqli jiray intay la ka jabta ilmaheedii iyo masaygeedii wax usoo kariya ay weysay marka dambe Soomaaliya ka dhacday retirement I think I'm in that way ku jira amna retirement marlina carra amna okay dadka anoo jiran waa is cooking leedahay oh my god ilaahay ma macna marka alxamdulillah so my advice is like ina ilmaha wax barno hadhow marka u baahatid oo kale saan oo kale u jiratid so they can help around in mala wixii ama maxay ahaato cuntadii baastadii waxyaalo ay soo kari karaan aniga beeshanka ma hayo horta dadka wax ku baro it's not the kids fault because anaaba jecleen inaan qofka wax tustusa maanta dhan dhaho saan ha inta u walaaqi inta ka walaaqi like dulqaadkaas ba ma haysto marka hagana budda dambiga anaa korka iska saarayo balse wallahi it's just like hard adiga in wax lagaa sugo adoo jiran gurigii oo adigina adiga wax u baahan tahay it was like experiencegii aan la kulmay oon dhahay okay I think dadkan dhan waxay u baahan in Soomaaliya la geeyo Soomaaliya dadku wax barbar jiro ma lahan boy you know ayanka bari jiro sida meelaha u fiirnayaan qofba wuxuu jecel interest ma arkino like ilmaha ama qof weyn haduu qofba wuxuu jecel inuu wax barto dadna ma bay jecel they don't care so marka daastar inaan ka bartay inaan ilmaha baro in case waxay ku dhacaan ama aan jirano like alxamdulillah aniga horta weligay qof dhulka taalan ma noqonin oo like inaan umashid ama wax igu dhacaan alxamdulillah guri lagu xirnaanayo iyo waxaan la kari karin oo maadaama la fiin ay xanuunayeen jirkiina oo iska jajabsanaay like you know in the mood inaan jiko inta gasho cunto karisid even adoo kari kartido wax hadda alla taala aysa jirin laakiin inta kaniin laqad markii xanuunka iga ba'ay saasaytu waa karinaye markii intaan kaniiniga aan laqo xanuunka oo iga aamuso waa karinaye saasaytu guriga cunto la'aan ma ahayn laakiinse waxaaba madaxa ila xanuunay awalba hadda waan ii sheegay cudurkaana xanaaqa asaga iska watay markii la dhaho maxaa cunaa guriga cunto ma bataale what are we gonna eat for lunch subaxdii what are we gonna eat for breakfast what are we gonna do this what are we gurigii dhan wax hagaajinooya maale adduunyada dhan maseegana waa iska taqaamisay Soomaali laba jeer oo iska daba noqon wax ka qabto oo ugu fiican maasha Allah next time waxaan ku leeyahay okay ana bari subina barina is after 3 months you guys know that marka insha Allah marka xaraaqi ka soo qaado covid kale kaas oo ahaay intaas ay la sheer gareynay alxamdulillah ilmahan aan wax barano bal sidii wax ku dhacaan ama dhaqtar lagu seexiyo oo anything can happen inay guriga ka caawi karaan you know banaanka dix laga soo gado maanta dhan next time you can't even eat it anymore waa ka hor imaanay cuntada waa nacaysa marka somebody oo ma arkino meesha ka soo kaco saan ii sheegan amagana as neighbor hadii cunto ku keenan xataa ilmaha waa taqaan meelaan ku karo iskana say oh I don't like this food smells different it tastes different wax kibarka ka bad marka insha Allah ina ilmaha cunto barno is my advice before sheekada xumaan hadii covid kugu dhaca wax kale kugu dhacaan maasha Allah ilaahay naguma keeno laakiin naga hayo sidii qof aad ugu baahan kala ma arkano bil aadana marka aad ayaan kaga mahad celinaya inta YouTube ku xiran make sure na subscribe karaysid down below share the video adigana ra'yigeena ku soo darsada insha Allah iyo waxyaalaha isleedin waxa ku toosi karnaa marka aad ayaan ii salaamay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh see you next video insha Allah